qaar ka mid ah xaafadaha ku yaala magaalada Muqdisho ayaa waxay hoy u noqdeen falal amni darro kuwaas oo ka dhaca habeenkii iyo maalintii. Dadka ku nool xaafadaha Laba Dhagax iyo Xamar Jiriid ayaa bilihii la soo dhaafay la kulmayay falal isugu jira dhacyo dil lagu geysanayo guryaha ay degan yihiin iyaga oo loogu soo dhacayo, waxaana qaar ka tirsan dadka xaafadaasi haatan noqdeen kuwa isaga barakacay guryihii ay deganayeen. Dhagacade waa wiil ka tirsanaa dhalinyarada xaafada Laba Dhagax, waxaana habeen bar xilli ah loogu soo dhacay gurigiisa iyadoo dadka deegaanku ii sheegeen in lagu jabiyay qolkiisa kadibna lagu dilay. Habeenkaas horta meeshan aan waa joogay, laakiin dadkaas waxay ahaayeen dad tuug ah waysan. Markii amaanin waxaa la kulmay arrin aad murug ah u leh. Wiil ayaa inta guriga markay soo galeen waxay baarana la wakiwayeen, wiil ay dileen. wiilkaasna marka si qaab dar ay u dileen, tooriyaan ku dileen. Aan marka inta kala kulmay la saawala jeedaan halkan waxa ka dhacay fal dil ah oo habeen hore waxa soo koray koox tuuga ah waxayna ku soo galeen jarjar ku soo galeen gurigan u jeedaan waxa degan dhalinyaro iskaabula ah halkan waa qol sida u jeedaan gudaha ayuu deganaa yarka la dilay. Waxa la ii sheegay inuu ahaa wiil iska ganacsada ah kana mid ah dhalinyarada xaafadan degan. waxaana dhacay in jarjarta marka lagu soo galay kadib loogu jabsho qolkiisa ma cadda ilaa hadda sababta lagu dilay, laakiin waxay sheegeen dadka qaar inay ahaayeen qolo tuuga ah. qoladaasi inta badan waxay ka sameeyeen xaafada Laba Dhagax iyo xaafadaha ku yaran Xamar Jiriid falka dilka ah. waxaan tusi doonaa qolkiisa. waxa la ii sheegay markii uu halkan loogu soo galay qolkiisa in la dilay ka bacdi markii la sheegay in akoonkiisa la weydiiyo waxa uu sheegay waxa ku jiro halkan waa dhiigiisii, halkan waxa yaalay sariirtiisa ayaa taalay. kabacdina waxa la sheegay markii sariirta la dilay oo dhowr mid lagu dhuftay inuu soo dhacay oo dhulka yimid halkan uu ku dhiig baxay oo san u dhintay dhiig laan u dhintay. falkan waxay noqonayaan xaafadda waxa ku noqonaa mid soo laabtay. xaafadda ku degan waxay ii sheegeen dadka degan in saska loogu dhacay oo qoyska markii loo dhaxgalay lagu yiri waxa aysan keenaa. qoyskiina ay yiraahdeen waxa ma hayno, kadibna mid la saaray carruurtii odayga guriga lahaana u dhiibay lacag ku dhawaada $7,000. kiiska noocaan oo kiis aad u xun oo ku soo badanay xaafada ka tirsan magaalada. kiisaska dilka oo ay geysanayaan kooxaha burcadda ee habeenkii u dhaca guryaha ayaa baryihii dambe waxa ay ka noqotay caasimadda mid ku baahday gebi ahaanba, iyadoo dadka xaafadaha Laba Dhagax iyo Xamar Jiriid degan xilli galab dheer ku xaroodaan guryahooda si ay uga ammaan helaan khatarta kooxaha wax dhaca. waxaa isleeyahay waxa soo kordhiyay maadaama tuugada ay badan yihiin, haddii dhacdo in macnaha maalintii wax la dhacayo habeenkii wax la dhacayo marka in guriga la iskugu yimaado marka xaalad meesha ugu xunaada mar haddii guriga la iskugu soo jabsanayo meesha ugu xunay xitaa waxaa dareemaysaa marka qaar waxaa arkaysaa in guri la jibiyey oo albaabkiisa tuulihiisa wixiisna haddaa fiiriso iyo caafimaad qabaan gurigiina waa la galay xal dhibaa ka dhaca lagu leeyahay. marka farsamo oo ala yaabta la yimaadeen nimanka. ammaanka Muqdisho oo ahaa mid soo hagaagayay ayaa haatan sugidiisa waxaa looga mashquulay xasaradaha siyaasadeed ee waddanka ka jira, kuwaas oo keenay inay sii kordhaan dhimashada dadka aan wax galabsan ee hoygooda lagu dilayo. Maxamed Ciise Kona, Goobjoog, Muqdisho.